mooto bajaaj anoo saaran oo taleefka fiiraay ayaa canugu dhinaca midigta igala soo wareego waa arkay marka waa ka shakiyay bidixda iga soo maray tuurin intaas la ugu watana oo igala soo boodo marka aniga markuu igala soo boodo arkay biskoladan wato iska soo jaray waa xidig Abuukar Macalin Maxamuud oo ciidamada militariga u qaabilsan dhinaca wacyigelinta waxa uu ka sheekaynayaa qiso la yaab leh oo qabsatay isaga oo ku sugan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir wuxuuna sheegay inay kala qabsatay isaga iyo sidoo kale koox ciyaal weeraa oo doonayay inay ka dhacaan taleefanka baasha daacada muhiim ah moogta gubadley cornel military oo cornel Sani Abdul Gaab la yiraahdo amnigeeda mas'uulka ah cawada hadan gubadley oo hooyanaayo ciidamo socda iyo imaanayo control shabaab ma galo qof shabaab kuma dilo qabiil wax lagu ma dilo ciyaal weeran ma tagaan waa hal sargaal oo ciidan kamid ah mas'uuliyad oo saaray deegaankii oo mas'uulka ka ahna nabad oo ka dhigay waxaan aaminsanahay marka qof walba mas'uuliyadaas day ay si lillahi u gudato inay dhamay karto warbixintan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wixii kala qabsaday kooxda ciyaal weerada ah iyo sidoo kale xidig Abuukar Macalin Maxamuud balse daawadayaal inta aanan u gudagelin waxaan marka koobaad idinka codsanayaa inaad muuqaalka like inoo saartaan si uu meel dheer u gaaro sidoo kalena aad inoo share gareyso commentiga wixii ra'yigaaga ah qaybta commentiga ayaad aragtidaada noogu reebi kartaan ciyaal weer in la yiraahdo dambi dad waaweyn oo qaarkood ilmo leh oo 40 sano ku dhawaa ku jiro dad gaangisa oo muqaadaristayaal ah oo wax biilaan aqoonin oo dadka nabadgelyadooda iyo noloshooda qof hadoo in ku dhac ka taga nadiif waay anyu ku dhaco oo kuna dila ama wuxuu ku leeyahay bitiya ku soo baxay waxa la ii sheegay maalmahan inay dhahaan naagtan ka sinayso aku soo baxdo kale habeena waxa dhacday yar sargaal saaxiibka la socday tina soo jirtay asagana waa jaray mooto bajaaj anoo saaran oo taleefka fiiraay ayaa canugu dhinaca midigta igala soo wareego waa arkay marka waa ka shakiyay bidixda iga soo maray tuurin intaas la ugu watana oo igala soo boodo marka aniga markuu igala soo boodo arkay biskoladan wato iska soo jaray waa boodiyay tuurid isku dhifatay meesha ku dhacay marka raacdeystay dad shacab oo dhaxgalay waxa aysan marka xabad ku rido dadka shacabka wax gaarsiina waa iska dhaaf marka laakiin waxa la ii sheegay inuu kidib is meesha ku soo laaban meeshii qof dambo dhar cadaho biskolad wato oo mooto saaran inay soo degdegin ciyaal weer in la yiraahdo dambi dad waaweyn oo qaarkood ilmo leh oo 40 sano ku dhawaa ku jiro dad gaangisa oo muqaadaristayaal ah oo sabab kale way hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexan waay seedahaadi goyse goorma qorax noogu damaysay indhihii baan kala qaadi lahay yani waxaan eegi lahay dhalcada iyo cadceeda noo jirta waa cajiib marka aad baa idin salaamaya waa walaalkiin Sahal Cismaan oo kala socotaan Fikir Sama Studio waxaan ka soo salaamaya tuuladayda xaafadayda waa mar kale iyo muuqaal cusub cabaar baan xirnaa inaan magaalada ku soo dhex jireyno socodna aadno luga furasho ya hadeenu nasiib leenahay waxaanu la kulmi doonaa dad aan wareysano hadii kalena waxaan wada daawanaynaa magaalada iyo maartay ismayaasheeda iyo waxyaabaha ka jira markaa ka kala socda markaa isla socod hagaagsan oo ka inta waxa igu hareeraysan sida halkan waa meesha lagu ciyaaro kubadda iyo sports kala duwan halka waxaana looga dhisayaa guriga madow oo yahay Lafoosh boat house ku qoran tahay waa swimming poolkii oo degmada baa laga dhisayaa oo hadda gacanta lagu hayaa dhamaad buu joogaa sanadii waxa uu socday garoonka dib u habeyn baa lagu sameeyay kubadda cagta hoolkaasna ciyaaraha maartay barafka ayaa lagu ciyaaraa oo gudaha oo lagu ciyaaraa qaybo kale oo sportsna waa leenahay dhinaca kale sii jiraan yep marka isla socod wanaagsan marka degmadeenu waa degmo yar oo jawi degan waka suuqeeda halka waa tareenkii baan goynayaa jidkii tareenkaan goynayaa ma garat marka maanta waa maalin jawi fiican yahay oo iftiin ah oo cadceed yar jirto barafkay dhalaalinaysaa
waa dhammaadkii bishii labaad markaa saddexaad wixii loo gaaro xoogaa jawigu sidii hore uu ka soo diiramaad ka noqonayaa oo uu ka soo hagaagsanaanayaa wakaas u dhalaalay bartamaadka dhulka biyuu noqonayaa wuxuu noqonayaa biyo yaa marka waxa weeye asxaabta waxaan leeyahay kanaalka dee waa la socoteen ayaamahan wuu soconayaa wuu dhaqaaqayaa meelo badan oo kala duwan waxyaabo badan oo kala duwan dalal badan oo kala duwan marka qorshe weyn baynu ka leenahay mustaqbalka kanaalka marka fikir samee ha lagu xirnaado maaragta laga warhayo ha la dhiirigeliyo markaana waxaan ballan qaadayaa haddii rabeedno naftan ibaaqa igu sii ahaato inaan ballamiya aada ka qaaday aan sidii ugu habboon oo ugu fiican aan u fuliyo waxaan idin daawasiinayaa waa magaaladii yarayd ee aan deganaa ee Hellefosh waxay ku taallaa Hellefosh dadkaan aqoon dalka Sweden gobolka Örebro ama Örebroland ama Örebro region ay ku taallaa waxayna xad la leedahay gobolkan kale ee Värmland kala dhaho Filipstad bay saaran tahay oo gaariga wax yar oo nus saac camal ah loo kala socdaa Filipstad waxay ka tirsan tahay gobolka kale ee Värmland marka barasho wanaagsan waa meel ilaahay nagu nabadgeliyay wax ku baranay ku dhaqanay horumar ku gaarnay marka dhulka waa laga mahadnaqaa nimcooyinka ilaahay ku siiyo ilaahay baan uga mahadnaqaynaa Hellefosh marka just muuqaalkeena waxa weeye wandering around ma jiraan wax khaas ah laakiin inaan meelaha eelno warwareegno cabbaan oo aanu sheekaysanno uu ku saabsan yahay haddii ilaahay idmahayo waa kaatay bal sii firi reflectionka fiiri qoraxda iyo ay isku samaynayaan barafka dhalaalaya dhal uu noqday سمارس وحنا نغلي طلاق عجيب يا شوي معان وحاجات سر ويا مركا حالك واسداس مركا وحويا أدونك كوين قندلا قلت كسحب ماذا يو أدونك كوين قندلا hadda ka hor baan idhi moogta waxaa jira qaarado yaa badiyo waxaas ayaa buuraha waxaasaa lagu kala qoqobay yaa qurunba halkay degtaa ilaahay ku quudiyaa baa ku jirtay qurunba halkay degto baa ilaahay ku quudiyaa yaa qaladka sax u moodayo adduunka ka weyn qandala adduunka ka weyn qandala marka nin baa la kaftamayay aan reer bari isla nahay oo xoogaa doole ahaan ku weynaaday ahaa oo ayan duni iyo dadba is arag marka intiisa unbuu ku qanacsanaa laakiin way fiicanta intaada ku qanacsan tahay laakiin waa inay wax ku baxsan yihiin oo aad og tahay waxa kale oo dunidu sida looga yaal iyo sida u nooshahay iyo waxa ka jira waa inaa la socotaa marka wuxuu hadlay wuu aqoontiis unbuu hadlay saasay ahayd marka okay intaanu meel kale oo interest leh ka arkayno isla socod wanaagsan jacaylkii anoo dhalaan ah intuu dhayal iigu beermay ku saaqay dhammaan jirkayga yaa in aan warka toos u dhiibto intaanba ku dhiiran waayey dartaa dhaawaca i gaaray adoo iga dhayi karaaya afkayga maxaan ka dhowray adoo dhacdiid u jiifa ogayna dhibaatadayda sidii ruux dhigay hugiiba dhibicda roobkiiyo dabaysha maxaan dhaxamaha wareegay dhawaaqiyo erayadaada muuqaaga si aan u dheehdo amaan dhaayaha ku saaro yaa maxaan dhabbahaad marayso dharaar walba aan fariisto jaahaaga ku dheelalaabay maxay dhalintiyo asxaabtu xantayda ku dhiiradeenoo wadnaha oo dhiigbaxaaya intii dhayal layga mooday
sidii filin laygu dhoobtay ardaykii waa waashay arkii maxaa ka siyaa war caaqa muxuu samaynayaa war duuf ku baxay sidaan isu dhaan bababababa isla socod hagaagsan mararka qaar waxaa jirta in la yidhaahdo korneylka waxa uu dhigtaa isbaaro ama ciidankiis arrintaas maxaa kugu jawaabaysaa wallaahi waa aflagaado laakiin hadda si fiican kaa jawaabaa annaga isbaaro aan dhiganay iska dhaafe qofkii dhigata inaan dilnan amar qabna qofkiiba dhigato eriyada inta aan xakuno oo xamar ilaa inta qofkiiba dhigato amar madaxweynaan qabnaa inaan lagu dilo dad qaarna waa lagu dilay oo badan haddana qofkii dhex istaagto waa lagu dilaa adiguna horena waa u martay haddana waa sii mari kartaa haddaad ku aragto waa media waa kasii dii kartaa waxbaa noogu aabayeelin haddaad umahadsan tahay marka waxaa leedahay ma jirto isbaaro u taallo guutada afraad ama talis ciidanka hoos imaada korneylka ciidanka hoos imaada korneylka iska dhaafe annaga waxaan xakunaa meeshaan aan joogno ilaa xamar meeshaan aan joogno ilaa xamar wax isbaaraha oo yaallo oo anba xoogga dalka leeyahay anba qof kale ay leedahay ma jiraan waa tax waxaa iga warantaa sanado badan usoo shaqaynaysa xogga dalka Soomaaliyeed hadda howlgalaa socda qayb ka tahay qaybta ugu muhiimsan oo gobolka Shabeellaha Dhexe aan dadka wax ka horeys mis leedahay kooxdan khawaarijta al-shabaab gobolkooda waa dhacay gobolkooda inuu dhaco qof kastoo aqal lahaa og gobolkooda waa dhacay teemkooda waa dhamaaday dadka shacabka ah way arkeen inay liitaan ayagoo cararayo hilfaha ka cararayo baayaysay arkeen caldheero waa kaga hadda tuugso hayo dhahay ma taqaanaa lacag kale oo shaqaaraan oo cabaadayo qaraxi soobo 5 sano ka badan 10 sano ka badan ay ku soo wareegtay hadda ka tacsiyahay dhahay ma taqaan dadka dhiga waa ognahay ilaa markaas ilaa waqtigaana aan maalin aan ka hadlin iyo umada baabaasheen hadda waa ka tacsiyahay dhahay umaday ku dhibkaas ku dhacay uga tacsiyahay muxuu ka tacsiyahay ninka dhiga asiga marka kuwan gobolkooda waa dhacay umadan Soomaaliyeed damana sidii uma doona insha Allah haduu Ilaahay yiraaho umada Soomaaliyeedna waxaan u baaqaa inay qof walba meesha ay joogto inay qoraal qaatay iska celiso waxa iga warantaa hada shacabka ala kulanteen sidii soo dhaweeyeen sidii soo la dhaqataa shacabka si fiican inuu soo dhaweeyeen oo sharaf leh hili hoo in la garab sugan iyagoo qoraylahay joogan arkay ayagoo xoolaha keenahay joogan ayuu gabdhuhu ay adeegayeen barax ay wadaan joogan marka sidii inuu soo dhaweeyeen caadi maaha adna arki doontaa inaad waraysi ka qaadeen aragtood waa fi aadi u fiicnaa leh dhaqankiina ka waran sida ula dhaqanteen dadkaas oo soo dhaweysanaad ku hadda anaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhaqankeena waxa in bulshada loo adeego dhaqankeena waaba ama awrta aan qabno iyo dhaqankeena in bulshada loo adeego dadka aan adeegno waa anaga hay'adu mushaarna ma siisee dadka shacabka canshuurta ay dibana mushaar naga siiya marka in bulshada loo adeego dhaqankeena ayba ugu dambeyn korneyl fariinta halkan ka dirayso Ali Axmed oo ku aadan khawaarijta maxay tahay khawaarijda waxaan u sheegaynaa oo fariinta u dirayna waxa waaye waqtiyada ugu dhow waxa dhamaa doona cafiska uu madaxweynuhu cafiyay ninkii jaanis haysto inuu isu dhiibo hadda uu isu dhiibo ciidanka uu isu dhiibo ninkan isu dhiibina insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sida ku mid kor bahalada iyo jidda ku cunayeen ku cunaa Ilaahay yiraahdo deegaankan waxa jira nin caan ka ah qaraabo dhowna aad tihiin inta badan soo maamuli jiray oo kaba ku tukada leeyahay ma jirtaa fariin u dirayso kaba ku tukaday asiga hadda waa fariintii aan u sheegayno waxa waaye cafiskaas inuu ka faa'iideysto in badan deegaankan waa maamuli xoolo ma kiilay umada ka dhacay cafiska uu madaxweynuhu cafiyo inuu ka faa'iideysto marka faa'iideysana